mudaharaad looga soo horjeedo hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed laguna taageerayo galitaanka ciidamada dalka Kenya ay galeen koonfurta gudaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi. warbixintaana waxa magaalada Nairobi inooga diyaariyay wariyaheena Liibaan Cabdisalaan Maxamed. mudaharaadkan ka dhacay magaalada Nairobi ayaa waxa looga soo horjeeday hadalkii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed kaasoo ku aadanaan ciidamada Kenya ay isaga baxaan koonfurta dalka Soomaaliya oo dhawaantan ay gudaha u galeen. sidoo kale mudaharaadkan ayaa waxa lagu taageerayay galitaanka ciidamada Kenya ay galeen gudaha dalka Soomaaliya. mudaharaadkan ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Islii oo meesha ay Soomaalida ugu badan ka degan tahay magaalada Nairobi waxaana soo qabanqaabiyay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Nairobi kuwaasi oo u badnaa dadweynaha ka soo jeeda gobolada koonfurta Soomaaliya sida Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gado. dadkan ayaa waxay sheegeen inay doonayaan in goboladaasi ay nabad ka dhacdo sida ay hadalka u dhigeen. sidoo kale mudaharaadayaasha ayaa waxay sheegeen inay taageersan yihiin galitaanka ciidamada Kenya ay galeen gudaha Soomaaliya iyagoo markaasi ku dhawaaqay hadallo lid ku ah madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed. shucuurta dadka ayaa waxay ahayd mid aad u kacsan waxaana halkaasi dadka kala hadlay qaar ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyay banaanbaxan balaaran ee looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed isla markaasna lagu taageerayay in ciidamada Kenya gudaha u galaan gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya. waxa weeye shirkan waxa weeye aan maanta iskugu nimid mudaharaadkan waxa lagaga soo horjeedaa banaanbaxan madaxweynaha Sheekh Shariif hadalladii ka soo yeeray oo ahaa kuwa loogu kaalmaynayo maxaa la yiraahdaa shabaabka loogu kaalmaynaha yaa lagaga soo horjeedaa dadka reer Nairobi jooga ee Soomaalida ah waxay shucuurtooda ku muujinayeen in ay maxaa la yiraahdaa ay ka xun yihiin inuu yiraahdo waxay ka xun yihiin inuu yiraahdo yaan la dirin shabaab inuu yiraahdo way ka xun yihiin isaga oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed sheeganaya haddana inuu kaalmo siiyo shabaabka arrintaas laga xun yahay. aniga oo ah dadka u nasab sheeganaya jubbooyinka qaas ahaan Jubbada Hoose waxaan ka xumahay in uu Sheekh Shariif intuu madaxweynaha ahaa uusan marna ka hadlin dhibaatada lagu hayo dadka muxuu ahaa ku nool jubbooyinka taas oo aan u maqalnay inuu ku hadlay inuu al-shabaab sabood garaynhayo sababtoo ah 20 sano aan qaxaynay marna waxaan haystay nimanka la yiraahdo hogaamiye kooxeed marna waxaan qaraacayay al-shabaab maanta waxaanu lahayn madaxweynaha asagana xaqu ka soo dharbaaxaya al-shabaab halkana waa laga dharbaaxaya nolosha lagu qabanaya al-shabaab dhibaatooyinka ay geysatay dhaawaceeda inuu Sheekh Shariif ka damqanayo shalay 200 arday waxay qarxiyeen daraad bay ahayd marwada ugu qaalisanayd ee ahayd qamar ee lagu qarxiyay shaamow maalin walba qaraxa noocaasa waxaan weydiinayaa madaxweynaha miyuusan xanuun ka haynin miyaysan dhaawac ku ahayn al-shabaab wax allaale iyo wixii la dagaalayo annagu waxaanu leenahay haddaan nahay jubbooyinka qaas ahaan waxaan nahay dad samaystay maamul goboleed u madax bannaan fikradooda. Sheekh Shariif waxaanu moodaynay nin daacada nin dalka iyo dadka iyo danta u doodaya laakiin shareel marabi ma noqdo isaga al-shabaabka isaga dhaliyay aabihii buu ahaa hadduu ahaa waxaanu moodaynay inuu ka soo tanaasulay maatada iyo hooyooyinka iyo caruurta iyo qaxoontiga ka naxo maayo ninkii jeebkiisu qoyan yahay ninka kale jeebkiisu qoyan ninka kuma naxo. Sheekh Shariif oo ka soo noqon halkii asaga ku hadashay anigu ambassador for Peace Faadumo Cilmiya hooyada nabadda waxaan baryayaa oo maanta aanan colaad horseedaynin colaad habartii colaad horseedaydii hooyo colaadeed mihi hooyadii nabaddaanahay waxaan baryayaa Sheekh Shariifow duurkii aad ku jirtay ee looda lagugu lisayay ee laga soo dhaweynayay ee la lahaa qoyar socodku waa laga soo badbaadiyay raggii ku soo badbaadiyay
laakiin inaad ka abaalgacdo maaha inaad soo badbaadiso maatada iyo mudanaha ragga shabaabka lagu sheegayna adaa duurka geliyay ee ka soo celi ragga duurka. midda ugu horreysa waa taageerada aan ku taageerayna galitaanka ciidamada Kenya ay galeen gobolada Jubbooyinka waa taageero. midda kalena wuxuu ujeedadiisa tahay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha isku sheega ha dhaco Sheekh Shariif ha dhaco madaxweynaha Soomaaliyeedna ma awalna shabaab asaa dhalay haddana shabaabkiisu ahaa shabaabkana waa ciidamadiisii hadalka asaga ka soo yeeray baanu ka soo horjeynaa waxaanu soo dhaweynaynaa soo galitaanka ciidamada Kenya ay galeen gobolada mana ka bixi doonaan dadka u dhashay gobolada labada Jubba iyo Gado waxaan jeclahay waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo waxaan jeclahay si aan gurigayga dalkayga iyo deegaankayga ugu noqdo cid kasta oo ay dhibaysana waan ka soo horjeedaa cid kasta oo inay xorowaan diidanna waan ka soo horjeedaa cid ay rabto ha ahaatee. inkastoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku kala aragti duwan yihiin galitaanka ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya ayaa haddana waxaa dhacaya banaanbaxyo ka imaanaya shacabka ku abtirsada gobolada Jubbooyinka iyo Gado ay ku sheegayaan inay taageersan yihiin galitaanka ciidamada Kenya gudaha Soomaaliya. Liibaan Cabdisalaan, Somali Channel, Nairobi.